wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland mudane Xuseen Maxamed Cabdille iyo balasaabka gobolka Togdheer ayaa kormeer ku maray ceelasha biyaha magaalada Burco kuwaas oo maamulkooda gacanta ku hayso wakaaladda biyaha magaalada Burco waxaana mas'uuliyiinta socdaalkooda ugu kula galayeen xaaladda dhabta ay ku sugan yihiin ceelasha biyaha Burco iyo waliba qaabka ay bulshada ugu shaqeyso wakaaladda biyaha magaalada Burco balasaabka gobolka Togdheer Axmed Cumar Xaaji Cabdilaahi Xamarji oo sharaxaad ka siiyay wasiirka biyaha magaalada Burco ayaa ka marakacay horumarka ay ku talaabsatay wakaaladda biyaha Burco muddadii uu hogaaminayay maarayaha hadda joogay jirta xarigle wasiirka biyaha Mr. Ali haddii ay tahay maarayaha iyo isuduwaha wasaaradda iyo shaqaalaha wakaaladda biyaha oo nusaaka ku gaala bixinay kormeel aad u ballaaran isagoo uu nagu hogaaminayay wasiirka biyaha runtii saawidi sheegayna wasiiranaadu saaxiibnaha uu yahay waxaan aad iyo aad ugu qanacnay shaqada ay saaka soo bandhigtay wakaaladda biyuhu oo noqotay mid aad iyo aad noo farxad gelisa runtii waana ku amaanan yihiin waxaana ku boorinayaa intaa ayay ka sii badanba ilaa iyo magaalada Burco aynu biyaha ka wada dharginayno in ay hawsha iyaguna halkaa ka sii wadaan waan ku ammaanayaa wasaaradda iyo wakaaladda iyo isku duubnaanta shaqada ay wada wadaanba hadday shaqaalantahay hadday maamul gobol iyo mid degmo ay tahayba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay wasiirka iyo wakaaladda iyo dhammaan isuduwaha waxaan leeyahay insha Allah bismillaah tacaala intaa ay ka sii badan waxaan qodob labaad ku yar hakanayaa halkan aynu joognaa waxa weeji waa dhul ballaaran oo ay leedahay dawladdu waxaan ku wargelinayaa dhammaan dadka ku xeeran qoraal horena waan ka soo saaray oo aan ku xayndaabka ku muujinayo inuu dhul dawladeed yahay dadka gobolka Togdheer waxaan ku wacyigelinayaa waceelkan joogna waceelkii Faraskabood iyo agagaarkiisa yaan lacag la kala qaadan yaan la kala iibsan waa hanti dawladeed wareegtaan ka soo saarnay gobol sida hawla socdaan dadweynuhu talaan kadib waxaan gobolka ku sugnaa ilaa shalayto waxaan mahad weyn u jeedinayaa maamulka gobolka ka degmada iyo shaqaalaha ama mas'uuliyiinta ka socda wasaaradda khayraadka biyaha oo intii aan gobolka joogay si wanaagsan oo hagar la'aana igu soo dhaweeyay mahad gaar ah ayaan u celinayaa talabaad saaka halkan waxaan u imi soo shalayna aanu si gaar ah gudoomiyaha Axmed Cumar Xaaji Cabdilaahi oo aanu saaxiibnahay isu wareysanay saaka waxaanu isu soo raacnay inaanu kormeer ku samayno ceelasha biyaha ee magaaladu ka cabto ilaa imika wixii aanu soo aragnay wax lagu qanco oo wanaagsan oo baahida biyood ee ka jirta magaalada aad iyo aad u dabooshay ayaanu soo aragnay waxaan u mahadinayaa mahad gaar u jeedinayaa shaqaalaha uu koow ka yahay maareeyaha wakaaladda biyaha isuduwaha wasaaradda khayraadka biyaha hawsha ballaaran ay wadaan ummadana u wadaan gacantana ay isku haystaan taana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxa iga farxiya ayaan ku arkay magaalada Burco systemka biyuhu ay ugu jiraan ilaahina waxaan ka rajaynayaa inay sidaas hawsha ugu sii socoto waxaan shaqaalaha iyo mas'uuliyiinta wasaaradda ku booranayaa una sheegayaa inay shaqo buuxda iyo gacan joogto ah la yeeshaan maamulka gobolka iyo ka degmadaba oo mas'uuliyiintu ayaduna hawsha hormuud ka yihiin waan idin salaamayaa geesta kale waa markii uu horeysay wasiirka biyaha Soomaaliland uu soo gaaray magaalada Burco tan iyo intii madaxweynaha Soomaaliland uu magacaabay wasaaraddiisa Mahad Faarax Star TV Burco.